بصارني بعقبون تاديه toddobiyo tobankii November sanadkii 2014 ayaa ergooyinka kala socday gobolada Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose waxay madaxweyne u doorteen Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan oo aan xilligaasi ku cusbayn siyaasadda Soomaaliya ahaana shakhsiga kaliya u muuqday in uu badbaadin karo bulshada iyo deegaanada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ay hadda ka kooban tahay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan oo doorashadiisa kadib la hadlay ergooyinka iyo shacbiga Koonfur Galbeed ayaa ballan qaaday in muhiimadda koowaad uu siinayo nabadgelyada taasoo uu ka dhabeeyay madaxweynuhu isagoona kaashanaya xukuumaddiisa aan u milicsano muuqaal iyo hadallo ballanqaad u badnaa oo maalintaa la doortay madaxweynuhu jeediyay runtii maalin taariikhi waaye ilaahay waxaan ka baryaa inaan ilaahay ugu aabeenin مسؤولية أيديبتين. أنا مسؤولية أيديبتين مثل إلهي وعيبين إلهي كبريا إذا وإن كاسنا أنا فاتاني مركوه الرسول. إنسان إلهي وعيبين إنسان إلهي وعيبين. رنتي حلوة لسكوني بكذا لكن هدي هو حب الله قوانين هكذا يقول بيبو رنتي وآلي حلو لنا وحيلاهي كبريا إن علينا شرف المقع كله ومتى يدورتين التكراشي ودولين سو شريف حسن ماها شرف وحاله نكي إلهي شرفه شعبك كنت أنا شيخنا نشافي سو شريف حسن ماها كامنيغا كاسكو waxa uu bilaabay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan dib u heshiisiin gaartay saddexda gobol oo madaxweynaha ka yahay taasoo daliil u ahayd golihii wasiiradii ugu horeeyay iyo qaabka xukuumaddiisa ku timid xildhibaano baarlamaan ayaa la soo xulay oo aan wax murna ka dhalan dhammaan beelaha dega saddexda gobol ayaa iska arkay haweenka ayaana qondo fiican ka helay wasiirada iyo baarlamaankuba waana wax u gaar ah maamulka uu hogaamiyo Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan beesha caalamkuna ay aad uga amaaneen madaxweynuhu iyo odayaasha dhaqanka ilaalinta qoondada haweenka mahad ilaahay iska leh gaar ahaan walaalkay midownina waa u mahad celinaa inuu midnimada u tanasulo inuu ogolaado inuu wasiirnimo qaato oo Koonfur Galbeed oo maamulkan uu la shaqeeyo oo u adeego ummadiisii runtii aad aan ugu mahad celinayaa wasiirada kalena sidaas oo kale waa u hambalyeena waan u mahad celinaa dhamaantiin wasiir ku-xigeen wasiiru dawlo hambalyeena leena soo dhawaada dawladdan in badnaasheeda lala yaabaa dhici karto laakiin anaga ma badnaan qabnaa dib u heshiisiin waaye dadka kulli shaqa laga rabaa maamulkan Koonfur Galbeed oo Soomaaliya dadka ku nool in la nadbeeyo la rabaa nabaddu marka waxay u baahan tahay dad badan ciidan ay u baahan tahay ku dhawaad ciidamo 5,000 gaaraya ayaa la xaqiijiyay tababaradooda iyo qalabkooda ciidan oo dhameystiran ciidamaduna waxa ay howlgal ka bilaabeen saddexda gobol ee Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose iyagoo astaanta u gaarka ah ciidamada dawlad goboleedka wata haliyadaas ayaa gacanta maamulka ku soo celiyay deegaano dhowr ah oo horey maleeshiyaadka shabaab u maamuli jireen waxaana sidoo kale doorkooda la ilaabi karin oo qayb ka ah militariga Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 6aad
iyo howlgalka amisom gaar ahaana sektorka saddexaad ee gobollada maamula madaxweyne shariif xasan sheekh aadan ayaa diiradda saaray dib u heshiisiinta iyo nabadeynta gobolka khayraadka badan ee shabeellaha hoose oo ka tirsan koonfur galbeed oo muddo ku noqnoqday ilaa uu gaarsiiyey in beelaha iyo odayaasha markii uu shirar u qabtay dib u heshiisiin ay wada saxiixdaan dalkan wuxuu u baahan yahay nabad iyo mashaariic iyo dib u dhis iyo caafimaad iyo iskool iyo jaamacado u baahan yahay aan ka fekerno meesha aan ka fekeri lahayn see loo dagaalaa see jaamacadii loo dhisaa see dadku wax u bartaan see caafimaad loo helaa inaan ka fekernaa nagala rabaa taasaan ka wada fekerno maamulka koonfur galbeed waxaa ka go-an si daacada dowladnimo ku jirto sharaf ku jirto inuu u shaqeeyo asoo kaashanayo mar walba dowladda dhexe iyo caalamka gobolka bokool oo degmooyinkiisu ay go'doomiyeen maleeshiyaadka al-shabaab ayaa madaxweynuhu baarlamaanka iyo xukuumaddiisa oo si wada jira iska kaashanaya waxay dadaal xoog badan ay ku bixiyeen sidii degmooyinka go'doonka looga saari lahaa welina dadaalku u socdaa wax badanna waa laga bilaabay fulintooda haddii ay ahaan lahayd ciidamo u gaar ah oo degmooyinkaasi laga hirgeliyey iyo shacabka oo inta badan lagu wacyigeliyey dowlad wanaagga iyo in ciidamadu ay kala shaqeeyaan sugidda amniga madaxweyne shariif xasan sheekh aadan waxa uu magaalada baydhabo ku soo dhaweeyey ra-iisul wasaare cabdirashiid cumar sharmaarke ra-iisul wasaaraha waxa uu ka qayb galay munaasabad lagu soo gebagabaynayey tababar ciidan kuwaasoo ahaa ciidamadii ugu horeeyey ee loo tababaro maamulka koonfur galbeed soomaaliya madaxweyne shariif xasan sheekh aadan iyo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid sharmaarke ayaa halkaasi hadal ka soo jeediyey iyagoo markaasi ciidamada kula dardaarmay in ay gutaan waajibaadka loo tababaray ra-iisul wasaare aad ayaan kaaga mahadcelinayna mahad ilaahay iskale inaad maanta xalay iyo habeen badan oo baydhabo nagula hooyayso maantana aad nagala qayb gasho ciidankan iyo dowladina aad ugu faraxsan tahay maanta adoo dowlad in loo xiray tababarkan runtii dafcaddii labaad waay dafcaddan oo hadda tababarka maanta loo xiraayo daraawiishta dafcadaa ka horreysay 219 runtii walaalaheen amisom ama dowladda etoobiya aadaan ugu mahadcelinaynaa ciidan si wanaagsan ay u tababareen ee uu ahaa tababarkan intaa keliya maaha 7 degmoo kale ayaa ciidan noocaana lagu tababaray oo maanta diyaara tababarka maanta ciidankan sii waxaa rabaa inaan u mahadceliyo amisom yani sida hagagaanta ah ee ciidankan u tababartay sida runtii ay ugu howlan tahay in loo dhiso ubadkii amniga dalka kan iyo deegaanka kan la wareegi lahaa maanta waxay ka dambaysa waxaa tihiin daraawiishtii goboleedka koonfur galbeed waa loo xireeyahay tababaradii dufcadda labaad waxaan loo dirayaa dufcaddii ka horeysay ee loo xiray waxaan soo dhaweynayaa dufcadda ku xigta ee hadda galaysa tababarka runtii waxaan leeyahay arabaa inaan ka ballan qaado annaga haddaan nahay madaxda federaal iyo mid goboleedba imkaaniyaadka idinka dhiman hadday tahay xuquuqdeedna hadday tahay gaadiidka iyo hadday tahay qalabka inta waa 19 bishii 11 sanadii 2015 ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaake xilli booqasho uu ku joogay magaalada Baydhabo ayaa waxaa halkan ka dhacay heshiis ay wada gaareen midowga Yurub iyo wasaaradaha qorsheynta xukuumadda Cumar Cabdirashiid iyo tan koonfur galbeed xilligaasi heshiiska ay wada saxiixdeen ayaa waxaa ku kacayay 12 milyan oo dollar waxaana kulanka heshiiska loogu magac daray ubabacdigida aafooyinka waxaa hadal ka jeediyay Cabdiraxmaan Ciinte oo xilligaasi ahaa wasiirka qorsheynta ee xukuumadda Cumar Cabdirashiid iyo waliba midka maamulka koonfur galbeed Cabdinaasir Caruusha faraxsanahay inaan magaalada Baydhabo mar kale ku soo laabano annagoo maanta u nimid wax la taaban karo inaan dadka reer koonfur galbeed aan u keeno waxaasna yihiin laba mashruuc oo sida hadda wasiirku sheegay mashaariicdan waxaa la yiraahdaa ubabacdigida aafooyinka waxaa loogu talagalay dadka nugul ee tabarta daran ee taalkoodu aad u liito bulshada dadka ugu liita hooyooyinka carruurta waayeelka dadka xanuunsan dadka barakacay iyo dadka saboolka ah intaba mashaariic ay ka faa'iideysan karaan laba mashruuc oo waaweyn ka socda midowga Yurub oo hogaaminayo ambassadorka Michael Charbone iyo wasiirka qorsheynta federaalka Cabdiraxmaan Ciinte sababaha u yimaadeen waxay ahayd meesha lagu saxiixo laba barnaamij oo muhiim ah maanta waa maalin taariikh ah shacabka koonfur galbeed
waxaa noo suuro gashay inaan meeshaan lagu saxiixo 2 barnaamij oo ay hirgelin doonaan hay-adaha isu tegey ama consortiumka la yidhaahdo ee Somred iyo BRICS. labadaas mashaariic lacagta ku baxaysa oo ka badan 22 milyan waxaa koonfur galbeed uga soo aadaysa lacag ka badan 12 milyan oo dollar. 14 May 2016 ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka Maxamed Cumar Carte Qaalib iyo wafdi oo hogaaminayo ayaa Baydhabo soo gaaray waxayna shir jaraa'id la qaateen golaha wasiirada ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxaana shirka looga hadlayay siyaasadda amniga qaranka waana meeshii ugu horeysay ee laga bilaabo dalka. Cumar Carte Qaalib ayaa hadallo kooban ka jeediyay shirkaasi. maanta waxaan u nimid sidii waxaa jirtay inaan wadnay hawshii in siyaasadda amniga qaranka la sameeyo marka la tashigii ugu horreeyay baan halkan ka bilaabaynaa oo ah maxaa la yidhahdaa dowlad goboleedka koonfur galbeed inaan ka bilowno Baydhabo kala hadalno sidii loo waxaa jira maxaa la yidhahdaa siyaasadda qaran ee hadda qabyo qoraalka la tashigii dowladda goboleedyada ayaa ka maqan si loo kamilo marka taasaan ayaa hawsha ugu badan ay noqon doonto haddii aan leedno. tobankii bishii saddexaad sanadii 2015 doorashadii madaxweynaha 4 bilood kadib waxaa lagu soo weeraray guri uu ka deganaa madaxweynuhu magaalada Baydhabo xilligaasina ma jirin madaxtooyo iyo xafiisyo dawladeed oo lagu shaqeeyo. weerarka hooyga madaxweynaha kadib waxaa goobtaasi madaxweynaha lagu soo weeraray soo booqday maalin kadib ergeygii hore ee qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay maalintaana hadallo ay jeediyeen madaxweynihii iyo wakiilkaasi waxa ay yiraahdeen ambassador Nicholas Kay aad iyo aad u mahadcelinayaa si wafdigiisaba oo shirayna soo booqdeen oo ah booqasho oo xaaladda aan ku jirno iyo waxyaalihii dhacay iyo sida ay yihiin ogaashaheeda inuu ogaado asigoo runtii mar walbana ayadoo hataa xaaladda khatarta markaan ku jirnay hataa uu teleefanada nagula soo xiriirayay runtii aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dhibkii ayaan dhaweyd meeshan ka dhacayna intii ku dhimatayna waxaan leenahay Allah u naxariiso intii ku dhaawacantayna Allah caafiyo kuwa cadowgaana waxaan aaminsanahay inay wixii ay soo maleegeen oo dhibaatada badnaa in Ilaahay naga bixiyay dadka Soomaaliyeedna meel kasta ay joogaan waxaan leenahay shabaab dhibaatada uu wado in lala dagaalamo waxaan ahayn oo uu leeyahay ma jirto sababta oo ah wax dan iyo dal iyo diin uu u hayo habeeraata ma jirto. Mr. President, thank you very much for your hospitality. I come today to Baidoa on behalf of the United Nations to show my solidarity with the President, the government and the people of the Southwest Administration to show that we shall not be defeated by terrorists. I came to congratulate the security forces of Southwest Administration and AMISOM for their success in defeating last week's terrorist attack. madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi heer caalami oo hogaaminayo ayaa waxa ay ka qayb qaateen caleemasaarkii gudoomiyaha baarlamaanka ee Koonfur Galbeed iyo ku-xigeenadiisa waxaana wafuudaasi kamid ahaa safiirka Itoobiya ee Soomaaliya u fadhiya. madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xafladaas caleemasaarka waxa uu ka jeediyay khudbad isagoona kula dardaarmay gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa inay si daacad ay ugu shaqeeyaan ay ugu adeegaan bulshada ay mas'uulka u yihiin. Koonfur Galbeed madaxweynaheeda xukuumadeeda baarlamaankeeda odayaasheeda dhaqanka iyo shacabkeeda waxaan leenahay hambalyo waa cusub iyo taariikh cusub ay idin bilaabantay inta ka dambeysana guul iyo wanaag idin rajaynaynaa. waxaan si gaar ah hambalyo u leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka ee cusub iyo ku-xigeenadiisa oo ayagana mas'uuliyad cusub garbaha loo saaray waa iska baranay inaan isugu hambalyeeyno laakiin runtii waa mas'uuliyad aad iyo aad u culus waay.
waxaa la isweydiinayaa maxaa ka qabsoomay ballanqaadyadii uu madaxweynuhu sameeyey xilligii doorashadiisa oo hadda sanadkii afaraad u bilaabmi doona. hirgelinta madaxtooyo Baydhabo iyo Baraawe laga hirgeliyey guryo martisoor ah iyo dhismooyin wasaaradaha xukuumaddu ay ku shaqeyso, dhismooyinka xafiisyo baarlamaanka Koonfur Galbeed uu ku shaqeeyo iyo howlal ay ku shiraan, hirgelinta bangigii hoose ee Koonfur Galbeed iyo dhismooyinka adeegyada garsoorka iyo cadaaladda, saldhigyo ciidan oo la dhisay, wadooyin dhowr ah oo maamulka ku guuleystay dib u dhiskooda sida buundo weyn oo laga hirgeliyey jidka 30 ee magaalada Baydhabo, dhismooyinka eerboorada iyo dekado oo dib u hagaajintoodu ay imika socoto sida Baydhabo, Baraawe, Berdaale, Buurhakaba, Qansax Dheere, Diinsoor, Nambar Kanton, Waajid, Xudur iyo goobo kale oo fara badan. hirgelinta raadiyaha iyo TV ku hadla afka maamulka Koonfur Galbeed iyo dib u dayactirka garoomo sporti, cisbitaalo iyo iskuulo si lacag la'aan ah wax loogu barto ayaa ka mid ah waxyaabaha muuqda ee maamulka uu ku talaabsaday. inta iyo in ka badan waa kuwa hore loo soo qabtay iyo kuwa mashaariicdooda hadda gacanta lagu hayo. hal warbixin laguma soo koobi karo waxyaabihii u qabsoomay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan, balse aan wax yar idin ka xusuusino dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee ka dhacay Koonfur Galbeed Soomaaliya sanadkan saddexaad ee sii dhamaanaya. 24 Juun sanadka 2016 maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa martigeliyay shirkii madasha qaranka oo ay ka soo qayb galeen madaxda heer federaal iyo heer maamul goboleed. waxaan aad iyo aad uga wada hadalnay sida loo fududeynayo ama ay tartiib oo qurux badan ugu dhamaanayso arrinta doorashooyinka iyo doorka oo ay ka qaadan karaan beesha caalamka ee ah taageerada oo ay sidii doorashooyin sax ay u dhici lahaayeen. maanta waxaan kala hadalnay saaxiibadeena beesha caalamka arrintaas waan isla garanay mabaadi'da guud ee shaqada inay socoto maalmaha soo socdana shaqooyin badan ayaa ayagana qabsoomi doona. waxaan isla garanay waqtigii doorashada loogu talagalay sidiis inuu ahaado oo aanay waxba iska bedelin. waqtigii loogu talagalay doorashadu inay dhacdo baarlamaanka cusub inuu yimaado sideedii waaye waxba iskama bedelin. waa koow. waxaan aad iyo aad uga hadalnay amuuraha ku saabsan amniga iyo ilaalinta amniga doorashooyinka iyo goobaha doorashooyinka ka dhacayaan iyo dadka maxaan ku yiraahdaa ka qayb galaya doorashooyinkaas hadday yihiin delegates hadday yihiin candidates ama xubno u taagan doorashada dhammaan sidii amnigeeda loo sugi lahaa. 8 mudane oo aqalka sare ee federaalka iyo 69 mudane aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa halkan lagu doortay si nabadgelyo iyo reereyn ay ku dheehan tahay. waana xubnihii ugu tirada badnaa ee dowlad goboleedyada laga soo doortay. qoondada haweenka halkan si aad ah ayaa loo xaq dhowray. madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa si dhow la socday doorashadii aqalka sare iyo aqalka hoose ee lagu qabtay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana xilligaasi uu xaliyay murano fara badan oo jiray. waxaan u hambaliyay doorashada iyo qaabka ay u dhacday. أولاً دورشون كده جري فرينا كهذا جرتي ولا هذا جرنا إن نيروبي والله كدورة جيبوتي والله كدورة مدينة دمية حمر والله كدورة وأنا سيبا على أنها تنتيا قبل هذا الشيء أنا جارها عن قبل كباي يارا بيضاء أو عاصمتكم الجار كونفور بالبلد مركا أرجوين كأول كتلقلي وكنت يكوك هذا وانا إني هدور وانا كتلقلي ولين كان بليان إني وانا قف واجباتي بذكر ومدن أبي ذكر إني هدور وان تذكر جون كهدور ونفتيان ولا كأسيان إني إرجع مسؤولية قاعدة كرتو ومدن تنا مسؤولية اللي كباهنا إن قاعدة كرتيني ونحاولان مركا داسكو بعد دوان كباه ولين كان بليان إني سنة ومدس إدي الدين تسن أبي xildhibaanada labada aqal ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo gaar ahaan xarunta madaxtooyada ku meel gaarka ee magaalada Baydhabo waxaa looga sameeyay xaflad sagootina. xafladaasi waxaa ka hadlay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana uu la dardaarmay xildhibaanada labada aqal ee laga doortay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya inay ku dadaalaan danta reer Koonfur Galbeed Soomaaliya.
gaashil isku saaraw oo safiiriyaw hanilin dooradey oodi sinatayn hanilin dooradey oy sinatayn ummatan oo gaashil iska saaraw oo safiiriyaw shariif xasan sheekh qaadan ayaa isu soo sharaxay xilka madaxtinimo ee Soomaaliya isagoo wada tashi muddo qaatay la yeeshay odayaasha dhaqanka xildhibaanada labada aqal iyo bulshada reer koonfur galbeed Soomaaliya ee ku kala nool dalka gudihiisa iyo dibadiisa wada tashi kadib shariif xasan sheekh qaadan ayaa cod sare ku sheegay inuu u taagan yahay xilka madaxtinimo ee Soomaaliya laakiin taasi ma noqon maadaama la hormariyay doorashadii guddoonka baarlamaanka Soomaaliya loona doortay gudoomiye Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo kamid ah xildhibaanadii aqalka hoose ee laga doortay deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya shariif xasan sheekh qaadan ayaa hamigiisa ahaa maalintii xilka isu soo sharaxay sida tan أنا مشروع النمذج لهينجيلي ورتب أنا فضاي لهينجيليو أنا وفضان معرض إذا أقول وأنا هذا الجيك أمانة كتبعي كلام أقول استعاد إسلام نمط نمط يهدنا إلهي نوري بتوبي من سنسير وين بلنقاده إن أمد الصومالية فتين هلكان كاسنغل أنا سيك أيوة دوم هرتيو بإذن الله الكريم سعداء الصومالية أنا واجباتي إن كنت دور يسيك بلنقاده runtii dhibaatooyinka jireen jeebka waa misloogiyo dhibaatooyinka Soomaaliya mar Ilaahay inaa waahidaay 25 January ee sanadkan qarax ismidaamin oo laga fuliyay hotel Dayax ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa dadkii ku geeriyooday kamid ahaa qaar kamid ah odayaashii dhaqanka ee soo dhisay dawladda koonfur galbeed Soomaaliya waxaana Baydhabo looga sameeyay aas qaran iyo kulan weyn oo lagu baroordiiqayay halyeeyadaasi dhisay dawladda maanta aan ku noolaanayno koonfur galbeed waxaa sanadkan ku dhufatay abaar xoog leh oo saameysay howlo dhaqatadii iyo beeraleyda reer koonfur galbeed Soomaaliya waxaana isku biirsaday reer koonfur galbeed Soomaaliya saddexda shay ee laga duceysto sida abaar cudur iyo colaad madaxweynaha ayaa si looga jawaab celiyo saameynta abaarta waxa uu ku dhawaaqay guddi lagu magacaabo guddiga gurmadka abaaraha koonfur galbeed Soomaaliya waxaana gadoomiye u ahaa Allah u naxariistay wasiirkii arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee geeriyooday Madoobe Nuuno Maxamed 11 bishii Juun ee sanadii 2016 waxaa magaalada Baydhabo xilli abaar daran ay jirtay booqasho ku soo gaaray madaxa hay'adda UNHCR ee Soomaaliya ka oo markii uu yimid xarunta kumeel gaarka ee magaalada Baydhabo kulan albaabada u xiran la qaatay madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Qaadan kulankooda kadibna hadal ayay jeediyeen become again displaced people, internally displaced people. Otherwise, we defeat the purpose of good return. So I'm very happy and very pleased about the result of our conversation, and I'm very confident that we will work well together in the next few months and years. And my organization, UNHCR, is totally committed to working with the Somali federal and state authorities. 7 Maaj ee sanadkan hogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maalin cad ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo waxaana uu kormeeray xariyaha ay degan yihiin dadka barakacyaasha isagoo ay wada socdeen madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Mudane Shariif Xasan Sheekh Qaadan iyo qaar kamid ah golihiisa wasiirada bilow iyo dhamaad gurmadka loo sameeyay dadka ay abaaruhu saameeyeen waxa uu ahaa mid aan marnaba joogsan waxaana ka wada jawaabayay dawladda iyo shacabka reer koonfur galbeed Soomaaliya waxaana si aad loogu xasuustaa gurmadka la sameeyay Allah u naxariistay Madoobe Nuuno Maxamed oo markaasi ahaa gudoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha koonfur galbeed Soomaaliya ka soo qayb galay runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay wafdigan imaashiisa maanta oo maanta yimid asigoo u yimid waxa Soomaaliya ka socda gaar ahaan goboladan dhibaatooyinkan ka socota inay ogaadaan way maqleen wayna ogaayeen laakiin haddana inay indhahooda ku arkaan ay dadka la qaybsadaan runtii waa ka soo wada hadalnay ummadan dhibaatada ku jirto
dhimanayo oo rafaadsan oo daawo la'aanta iyo nabad la'aanta iyo raashin la'aanta iyo ismar la'aanta jidadka ka xiran intaba waa ka wada hadalnay ilaahay baa mahad iska leh runtii waxaan aaminsanahay mar hadduu asiga yimid oo ummadda oo arkay xaaladda lagu sugan yahay waxaan aaminsanahay in wax badan laga qaban doono caalamka oo dhanna waa u mahad celinaynaa walaaleen amisom ugu horeeyaan runtii dadaalka loo galay dadkan sida ay ku nabadgeli lahaayeen oo dhibaataan uga bixi lahaayeen dowladda federaalkana waa ugu mahad celinaynaa dadaalka ay ka wado arrimaha Soomaaliya gaar ahaan dhibka maanta jiro annaga waxa ugu horeeyo maanta aan u baahannahay waxa waaye dadkayga dhimanayo oo baahida u dhimanayo cudurka u dhimanayo in lala soo gaaro kaalmo bani aadan I'm here to express my deep solidarity and the solidarity of the United Nations to the people of Baidoa and to the people of Southwest State. This is the area in Somalia where unfortunately the drought is having more terrible consequences, putting people in a very, very difficult situation. This is also the area where diarrhea and cholera have been threatening the population. And it is absolutely essential that the international community supports, gives the financial support that is absolutely essential to make sure that working together, the local government with the national government, the local authorities, the UN agencies, the NGOs, the Red Cross, Red Crescent movement, working together and using the capacity that we already have on the ground in an excellent cooperation that we have, with those support, with that support from the international community, we will be able to respond. Kowdii May ee sanadan 2017 oo ay ka mid ahayd waqtiyadii abaaraha ay ka jireen koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo qaar kale oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya ayaa wufuuda caalamiga ee Soomaaliya soo gaaray gaar ahaan koonfur galbeed waxa ka mid ahaa wafdi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ka oo magaalada Muqdisho si aad loogu soo dhaweeyay kadibna u soo gudbay xarunta kubeelgaarka ee magaalada Baydhabo waxaana halkan ku qaabilay madaxweynaha koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan 23 bishii Abriil ee sanadkan waxa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan oo garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi hogaaminayo waxayna noqonaysaa booqashadii ugu horeysay ee 8 February kadib meeshii uu ugu horeysay oo booqday madaxweynuhu ay noqotay xarunta kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed ee magaalada Baydhabo iyadoo booqashadiisuna ay ku soo aaday xilli abaar daran ay ka jirtay deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya iyo qaar ka mid ah gobolada dalka ahayda maanta ay qabaan oo ugu daran madaxweyne ay u oomayeen waa dowladnimadaasna waxay dareemi karaan maalintii jidka Baydhabo inta baawur Corolla inta ku qaataan ay xamar tagaan hadeesan baawur Corolla intaysan qaataan hadeesan xamar tagin dadkan dowladnimadu shaki badan ay ka qabayaan madaxweyne codsiga ugu horeeyo oo anoo mas'alayo koonfur galbeed codkooda iyo ku hadlaayo in kuwan dowladiidka ah oo jidadka gooyay oo ummadan u diiday socod iyo shaqo u diiday in laga aragtiro jidadkana loo furo goboladooda iyo degmooyinkooda isku furmaan waxaana runtii aad u raadinaysaan suu sheegay madaxweynaha khayr Allah siiyo waxa tihiin dad fiican waxa taas cadeynaysa inaad dad fiican tihiin magaaladiina waxa loogu yeeraa Baydhabo Jannaay Baydhabo Jannaay macnaheedu ma aha magaaladii waa dadka fiican dadka dawladnimo raba dadka walaalo ah oo dadka soo marti soo dhaweysay aad maanta soo dhaweyseen insha Allah taasna waxa weeye waxaad ku raadinayseen waa dawladnimo waxaad inta dawlad jecel dawladana waa taqaanaan waxay tahay maxay dawladdu waa tan keenta amaanka iyo wada noolaanshaha anna waxaad iga filaysaan waa dawladnimadaas oo ugu horeyso inaan jidkaas furo
sidoo kale Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa ku guuleystay inuu gobolka Shabeellaha Hoose oo xilligaasi ay shacabka ay ka cabanayeen isku dhacyo gobolka ku soo noqnoqday in isaga iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo booqasho ay ku gaaraan degmada Afgooy ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaasi oo si diiran loogu soo dhaweeyay waxayna ahayd 8 May ee sanadan. madaxweynuhu meeshaan dhibaatooyinka ka jiro dhibaatooyin muddo badan is soo dul saarnaa waaye wadankii wanaagiisa iyo beerihiisa iyo sharaftiisa iyo dawladnimadiina meeshan ay taala say u shaqeysana waa la leeyahay maashaad aad aan u faraxsanahay annaga dadkayga maamulkaaga waxaan isku qabno hoos aan u dhaqan doonaa haddii aan helno dawladda dhexe wixii ku aadanaa ay qabato annagana wixii maamul ahaan nagu aadan inaan qabano dawladda dhexena ay nagula xisaabtantaan diyaar u nahay markaan hadalkiina dhageystay 3 arrimood yaa soo baxday waxa ay soo baxday dib u heshiisiin in loo baahan yahay waxa ay soo baxday in dib u dhis loo baahan yahay magaaladan tan saddexaadna dib u xoreen in loo baahan yahay saddexdaasna aasaas waxa uu ah cadaaladda maxaa yeelay cadaaladda adaa ku nool iyada kuuma noola meel aan cadaalad lahayna ilaahay ma karaameen ilaahayna waa u carooday dawladdaani waxay ballan qaaday inay ka shaqeynayso dib u heshiisiintana magaaladaani ka bilaabaysaa hadduu ilaahay yiraahdo dhiirigelinta waxbarashada ubadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Koonfur Galbeed ayaa u sii dheer madaxweynuhu tusaale madaxweynaha Shariif Xasan Sheekh Aadan wuxuu kormeer joogto ah ku sameeyay inta ay socdeen imtixaanaadkii mideysnaa ee sanadkan ay dawladda dhexe qaaday wuxuuna madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan uu ku booriyay ardada inay ku dadaalaan waxbarashada wasaaradda waxbarashada mahadnaqaana iyo ardayda iyo waalidiinta oo ka dadaalaan inay ciyaar iyo walbaraan adduunka waliba waa cilmiga iftiin waaye cilmi la'aantana mugdo waaye marka ummadina mugdo ku wada bato iftiin wada gala wada fayl waaye iftiin iyo mugdina waa la soo marka dhalinyarada iyo gabro iyo awlaad dhalinyarada magalka bilaanta balle oo imtixaanaadku ku jiraan wala in rajeey guulaan rajeey waalidiintiina waliyo oo fayeen iyo dadaalkiyo hagalan iyo wasaaradda iyo macallimiintii walbarti dhamaantii farxadii waliba taaniyo ay natiijo faylashanaan yoona dhalinyarada wala in rajeey natiijo faylanyo sheenaan dad wadanka wala ka kordhiyay cilmi iyo aqli iyo iimaan bisheenay iimasho faylayno nagadaan yaan rajeey waalidiintii iyo macallimiintii ka dadaalasina eedeedan ka mahad Ilaahay isku leh Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ciidaha qaar bulshada kula dugtay fagaarayaal ku yaala magaalada Baydhabo isagoo maalimahaas shacabka Soomaaliyeed oo dhan u hambaliyay caalamka muslimiinta waliba ka baaqanahay كستو سروق مسلم عيد مبارك علينا عيد مبارك gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ee beerogan way badana ciid mubaarak ciidu idii ilaahay nabadgelyo reer Koonfur Galbeed waliba laha ciid mubaarak ciidamada dhamaantii waliba laha Soomaaliyeed ciid mubaarak nabadiisu ku shaqeeyay dadaalsha iyo nabadda banaanka geedka tukadoohay aan nabadiidka dib isaga la dagaalamo fadna nabadda fadna ay kama nagaan wayna si ku rajeeyeen inay shacabkiisa alla si sunan nabad kala fadhiisan dadaalan waxa wali dhageysanaysaan dukumenti ku saabsan waxyaabihii u qabsoomay sanadii koowaad kii labaad iyo kii saddexaad ee caawa dhamaadkiisu uu ku egyahay oo aynu ka diyaarinay wax qabadka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo uu madaxweynaha ka yahay mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan waxa uu daahfuray munaasabad ballaaran oo ay isugu yimaadeen wasiirada arrimaha gudaha ee heer federaal iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana Koonfur Galbeed ay noqotay meeshii ugu horeysay ee laga hirgeliyo doorashooyinka dawladaha hoose shirka ayuuna ahaa kii lagu daahfurayay barnaamijka dawladaha hoose Shariif Xasan Sheekh Aadan hadallo dhinacyo badan taabanaya ka jeediyay kulanka ما سنتي ما لا يسكله لنا علمي وأنا رجالنا فرق المعمولة نفسه إن الواحد من السكوت الدوران دكتور ديا كان معمول أيوة الإستان وداعر وداعر الشغلين أيضا الأبي لما تذكر الشغلين دوران أنا الإنسان فرق المعمول كان ما يرد لما محتاج الدوران وأقرأ رجالنا مركز إن تذكر إيران madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa Koonfur Galbeed ugu qayb galay
shirkii arrimaha Soomaaliya looga hadlayay ee ka dhacay magaalada London ee dalka Ingiriiska May ee sanadan waxaana uu Shariif Xasan Sheekh Aadan ka jeediyay khudbad taariikhi ah dowladda UK iyo inta kale martida ah oo ka soo qayb galay oo si fiican u soo abaabuleen aad iyo aad u mahadsantiin maxad ilaahay iska leh soo dhaweyntii iyo waa idin mahadcelinaynaa hadal wixii la dhihi lahaa waa la yiri kulley madaxweynaha dhihi doona anaga wixii oo hadala ku aadan dadkan in lala hadlo madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhihi doono anaga midnimo iyo walaalnimo u wada soconaa wixii la soo maray waa la soo maray maanta halkan la joogaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sanadkan ku guuleystay in lagu sameeyo golihiisa wasiirada reshuffle waxaana ugu dambeyn lagu guuleystay in mudanayaasha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay ansixiyaan golahaasi wasiirada ee cusub kuwaana kuwa imika maamulka la shaqeeya inta dad fursad heleen wali balaha fursad weelisiin ku faday bulshada inaysan ka adeegtaan inaysan bulshada wala qabataan inaysan bulshada horumarka ka shaqeeytaan ee daacadnimo la siin ku helo haddii san daacadnimo ay tan isiin isdhibtaan ummadana dhibaasan way rajeeyay inay oonay dadkii hormeeliyo deersiyay ku dhaqaajiyaan meel taabada ku rajeeyaan horaantii bishii Oktoobar ee sanadkan madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo kadib shir muhiim ah oo uga qayb galay magaalada Dubai ee caasimadda Isutaga Imaaraadka madaxweynuhu wuxuu bulshada kala soo lugeeyay garoonka diyaaradaha ilaa madaxtooyada laakiin reer Koonfur Galbeedow wali latiin aysan federalism latiin konton sano ku hor iyo odayaalkii siyaasiyiinta ay xilligaas rogan wali adduunkan ka baaqayna Soomaaliya inay federaal nagato waqtigiisuga ay suurta gal waaytay Soomaaliya reedahan nagati federaal laantis dadkaas gorashadii tiyo oo gorashadii iyo gordan geewsiga hadii la gordo fadi geeka Soomaaliya meel roogdum roog lahayn Soomaaliya federaal hadda federaal la qaaday wala aysan dhaxalan latiin waliba ta federaal way federaalki inaysan lama gacmood ka qabsataan way dada ku fikiro haaya in federalismka la baabiyo federalismka dhumo federaal dhaxalan latiin waa inaysan federalismka ka dadaalaan federaal hadda la nagadi Soomaaliya federaal way madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dabayaaqada sanadkan waxa uu dahfuray kala fadhigii afraad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya isagoona mudanayaasha baarlamaanka kula dardaarmay in ay dardargeliyaan u shaqeynta bulshada ay iyagu matalaan horumar ilaahay loo kala koro laakiin haddii reer Koonfur Galbeed ahaana maamulku meel ku bilowday wala isla gorday geekan inta roog wala ku dhiman bani aadam wala suubiyo wala dhiman wala bilowday laakiin wali aaminsan bilaw feelay qabna bilawkiisa wali diyaaranana meelu satirooga in la ku adkayo horliinsi wado shalay walaalna taaysan ma haysan insha Allah birna wal ku feelay la doono hadii amniyaad hadii horumareed hadii siyaasadeed inta sanadan mashaqadii ka dhacday qaraxii Zoobe ee magaalada Muqdisho ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan xilli uu ka qayb galayay xarag jarka saldhig weyn oo laga hirgeliyay magaalada Baydhabo waxa uu cambaariyay weerarkaas isagoo furitaanka saldhigana hadal dardaaran iyo dhiirigelin ah ciidamada booliiska u jeediyay salaam ku baad mahad ilaahay isku le eedeedan ka mahadnaqaana dowladda Ingiriiska oo runtii kaalmayti wal badan oo kaalmo badan dalku hanjeysatay gaar ahaan reer Koonfur Galbeed gaar ahaan tan una tigeekan roogna oo runtii guruun quruxda badan oo Koonfur Galbeed helicopter shaqo booliiska runtii wal eedeedan faylo wayna tusaasay in dowladnimada hanaga dahayto idin Ilaahay kariim runtii booliiska lita boqol hay wala ka tababari Baydhabo wal badan ku bedeleen haddii oo heleen xafiiskii weynay quruxda badan ay ka shaqeeyeen lan furina waliba aaminsanaa wali dambe oo dhiman qabado doonaan haani arxaamulaayaalkii oo ishaligay oo ummadda iska haligeen dhibaatooyin badan injeysadeen inta ka dhimatay Allah naarisa inta ka dhaawacantiin Allah caafiya inta dhibaato ka deertay Ilaahay wali inku tuuganayna Ilaahay ku shaafiya haan dawladiidkana Ilaahay wali ku tuuganayna Ilaahay wadanka ku zuuli gaar ahaan Soomaaliya oo dhan Ilaahay ku zuuli caalamka dhan Ilaahay ku zuuli wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Kismaayo oo ay isugu tageen madaxda dowlad goboleedyada dalka si diiran ayaana halka loogu soo dhaweeyay hadal kooban ayuu Shariif Xasan ka jeediyay Kismaayo
runtii aad iyo aad aan idinkaga mahadcelinaynaa runtii taariikhaadaan u leedihiin soo dhaweynta iyo walaalnimada iyo soorka fiican runtii aad aan idinkaga mahadcelinaynaa waa ku mahadsantihiin sida madaxweynuhu sheegay shirkan shir nabeed iyo shir wadatashi shir sida Soomaaliya ay dhibaatada maanta ku jirta ee gorbixin lahayd looga tashanayo kuwa dowladiidka oo na dhibaateeyey habkii loogu gudbi lahaa dhibaatooyinka ay lagu hayaan sida deegaanada tan gaar ahaan labadan maamul oo ay ku dhaqaleen oo dhibaato badan ummadda u geysteen habkii loogu horeyn lahaa Soomaaliya nabadeeda sidii Soomaalidu ay aayadan ugu tashan lahayd runtii inta madaxweynaha sheegay ayaa loogu tashanaa حسن ماها نشافيي سو شريف حسن ماها شرف وحاله ننكي إلهي شرفه شعبك كنت أنا شيخني نشافيي سو شريف حسن ماها حسن ماها سو شريف حسن ماها isla bishii Oktoobar madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo wasiirka arrimaha gudaha ee heer federaal waxa ay magaalada Xudur ee xarunta gobolka Boqol uga qayb galeen caleemasaarkii gudoomiye doorasho ku yimid ee degmada Xudur golihiisa deegaanka iyo gudoomiyihii gobolka Boqol Maxamed Cabdi Tool oo mar kale dikreeto ku yimid oo isna la caleemasaaray maalintaas degmaduhu eeda langorda way ku codsadaan inay dadaalkii hor la ogaayay geeka marxaati kala sii weelati way lagu faday inay dadaalka daran eedan ka mahadnaga wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka sidoo suunay arintan ay suunay wala ku qabadi wasiirka arrimaha gudaha maamul goboleedka suunasaas oo kale iyo dhammaan intii la shaqeeyay hay'ado dadweynaha qaybooshii shaldu odayaasha dhaqanka oo maamul dhisida iyo iskoyk iyo wada hadalka taariikhda in leh oo reer Xudur يوم بتنساس السلام دموينك كلا دمغنين إلهي نفوض إلهي تفوض شعب كرار حضر ولي بس إن لها هنبليو ما ممكن للشقة ما ممكن محمدن حديث قرض وايتن قعمو هانكنا كشانتن قعمو هانكنا سوك نقاسن هكذا لكن شقة يسدواي أما مسوق ماسق يقدر لك أرجع هو بيسون فلان من الروكو يوم كباهنا إن الشعب شو الشرف لنا الشقة يعني يوم سأسأل فضاء برلمانك iyo wasiiradan iyo control doona biidin ilaah kariim eedadan salaame waqti gaabanaya la roog dadka ku qeyb galay dhammaan xafladan way balaha eedadan maasantiisin mahadnagaana xafladan xaflad khayr ayaan rajaynaa biidin ilaah kariim eedadan maasantiisin salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabado kala duwan oo ka dhacay magaalooyinka maamul goboleedyada dalka sida Hirshabeelle Galmudug waxaana ugu dambeeyay caleemasaarkii madaxweynaha Hirshabeelle si diiran ayaana waxa loogu soo dhaweeyay magaalada Jowhar isaga iyo wafdigiisuba waan aad iyo aad ugu faraxsanahay soo dhaweynta iyo sharafta xafladda loo agaasimay iyo madaxweynaha caleemasaarka waa u hambalyeynaa saaxiibkeena إلهنا وفديه وأنا أدعينا سلوينا أجدا ومهدلنا مهد إلهي أسكال shirkii wada tashiga ee dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ayuu ka qayb galay mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan khudbad taariikhi ah ayuuna jeediyay taa oo bulshada Soomaaliyeed ay la dhaceen dadka Soomaaliyeed
waa la dhibaatooyay oo magaalo u gudbi karta ma jirto degmo u gudbi karta ma jirto tuulo u gudbi karta ma jirto gaar ahaan aniga koonfur galbeed gobolka aniga aan ka imid saas darteed waxaan rajaynayaa ummadaas waxay naga sugaysaa in jidadkana loo furo ay isku socdaan oo sida bani aadamka ku noolaan jiray ay ku noolaadaan madaxweyne shariif xasan sheekh aadan ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad xariga looga jirayay ceelbiyood riiga oo noociisu ahaa kii ugu horeeyay ee laga hirgeliyo magaalada Baydhabo ka oo imika ay ka faa'iideysanayaan bulsho aad u fara badan wayna rajeeyeen in ceelal haan ku badan la qodo doona sida tan sheegay soddonka ceel iwal ku badan in la qodo rajeeyeen wayna rajeeyeen meeloonka dhibaato badan in wasaaradda yanahay ku warbiide meeloonka dhibaato badan la ku qodo ceelalkan ka horeeya gaar ahaan degmada buur xakaba oo markasta oo jiilada dhibaato ku jirta in horta ceelalka kale ceelkun kiiga meelada la ku qodo rajeeyeen bi faa'iidadiyo walgeeka tan si ay kornaan ma bani aadam biilaantiyo ma noolada kor madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan intii uusan ka qayb gelin ama uu furmin shirkii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee muqdisho ka dhacay waxaa xilli galab ah hodheel ku yaala magaalada muqdisho gaar ahaan naasaha blootu qaraxii iyo weerarkii halka al-shabaab ay ka geysteen mas'uuliyiintii ku dhintay ka mid ahaa wasiirkii arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Allah u naxariistay Madoobe Nuno Maxamed madaxweyne shariif xasan sheekh aadan oo xilligaasi isna ku sugnaa magaalada muqdisho ayaa golo wasiiro oo maamulkiisa ka tirsan u soo xil saaray in meydka marxuumka loo soo qaado magaalada Baydhabo halkan oo aas qaran loogu sameeyay oo bulshada oo dhan ay ka qayb galeen shariif xasan sheekh aadan ayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada koonfur galbeed ugu tacsiyeeyay geerida Allah u naxariistay Madoobe Nuno Maxamed oo ka mid ahaa shakhsiyaadka aadka dowladnimada u jeclaa si gooni ah waxaan ugu tacsiyeenaynaa intii dhibaatada ayada ah oo ku dhacday dhibaato aad iyo aad u weyn ahayd runtii waa ka tacsiyeenaynaa eheladiisii ilmihiisii iyo qaraabadiisii iyo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed haliyey Soomaaliyeed oo ahaa gaar ahaan haliyey koonfur galbeed oo ahaa nin koonfur galbeed wax badan ka soo qabtay inuu wax badan kale ka qabtan laga rajeynayo loogu rajeynayo waa runtii aad iyo aadaan ugu taasiyeenaynaa haladii uu ka tagay ilmihii uu ka tagayna waa u taasiyeenaynaa 15 bisha November madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa waxa ay gaareen magaalada Baraabe ee xarunta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxaana halkaasi ay ku wada kulmeen ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre oo markii ugu horeysay u ahayd Baraabe tan iyo markii loo doortay xilka ra'iisul wasaaraha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa halka waxa ay ka jeediyeen hadallo u badnaa ballanqaadyo iyagoona u ballanqaaday degmada Baraabe in laga fulin doono mashaariic tiro badan oo ay ka mid tahay dhisidda airportka iyo dekedda Baraabe maamulka koonfur galbeedna lagu booriyay in ay si degdeg ah ugu guuraan magaalada Baraabe oo caasimad u ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxaan idinku nabadgelin aeroboorkiina dhagax dhigno si loo bilaabo dhismaha aeroboorkiina waxaan idinku nabadgelin madaxweynaha dowlad goboleedkiina iyo madaxda dowlad goboleedka iyo kulligiina ku dhiirigelino magaalo madaxdu waa Baraawe waa inaan Baraawe u soo guurno inaan diyaarinahay in himilada reer koonfur galbeed gaar ahaan reer Baraawe oo ah inaan idinkala shaqeyno in deked la idinkaga dhiso magaaladiina naasan jumale waa nabad ka fiican adduunka ma jiraan Baraawe maamul goboleedka koonfur galbeed caasimadeedu waa intii inta ka horeysay tawarana soo guuri weyne biyada ilaahay kariim jidkaan ku soo jirnay hadda waa soo guureynaa sanadkaan intaan waxaan ku soo koobaynaa waxyaabihii u qabsoomay maamulka koonfur galbeed ee sanadii la soo dhaafay wuxuuna maamulka u macsalaameeyay 3 sano oo wax qabad muuqda ah wuxuuna hadda u gacan haatinayaa sanadii afaraad iyo horumar iyo baraare waxaa kaloo aan la dafiri karin in golihii wasiirada ee wasaaradaha loo xil saaray shaqooyin muhiim ah ay u qabteen bulshada koonfur galbeed gaar ahaan kuwa dega 3 gobol
xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaana kaalintooda iyana si aad ah uga muuqday muddadii 3 sano ay shaqeynayeen maamulka gobolka kan degmada iyo guud ahaan maamulada gobolada iyo degmooyinka koonfur galbeed ayaa horumarada aan kor ku soo sheegnay qayb ka ahaa fulintooda iyo ilaalinta goobaha dadweynaha loo dhisay ee shaqooyinku ay ka socdaan 15 November 2017 oo ku beegnayd maalinnimadii shalay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan waxa uu xariga ka jaray dhismo weyn oo ka tirsan madaxtooyada koonfur galbeed ee Baydhabo munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka kala socotay federaalka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya xubno ka socday beesha caalamka odayaasha dhaqanka bulshada kala gedisan ee ku dhaqan magaalada Baydhabo ayaa ka soo qayb galay furitaanka dhismahaasi cusub madaxweynuhu halkaasi ayuu hadal kooban ka soo jeediyey isagoo markaasi ka hadlay ujeedada loo dhisay dhismahani weyn isla markaana uu yahay mid markaasi ay leeyihiin shacabka koonfur galbeed Soomaaliya iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed mashruuc oo madaxtooyada ku leeyahay oo xafiiska madaxweynaha iyo wasaaradda maaliyadda oo qasnadii la walwalba leh guriyal oo runtii walbana anfaan doonaan ilaahay wali ku tawaanaysan anfaa haana la ka dhagaday nabadda ka dhagaday ilaahay ka weela ummaduna horumar iyo sharafta deeqti in ilaahay ku weela ilaahay ku tuugana dalka wali tuugana ilaahay ku tuugana deganaashiyo dawladnimo iyo horumar dhibaatadii abaartii iyo rafaadka ilaahay nubi ummadunta ay dhibaatay ilaahay wali ku tuuganayne ummado aan ka fayl oo aan ka degan oo aan ka dawladaysan oo ka sharaf badan in ilaahay ka weela ilaahay ku tuugana runtii in allanti wal ku jeesati inti fikra ku jeesati dhaqaale galiidi inti wal ku dhisti inti fikirka injineerki walaal dhisi dhamaantii ciidanka ma nagaan ma ilaahay isku leh